wadaadadaasi iyo atbaacdoodu guud ahaan xisbul ictisaam oo halkan Hargeysa marka la joogo muassasatul karam magaca ay ku shaqeeyaan u yahay waxbana hadhow yaan oran waadna sheegistaydu waxba yeeli mayso qaariye kamida tiifiyada la soo istaagay ictisaamka xataa geedaha yaqaan dhirta hadii la weydiiyo sogsogtii quraxaya galoolka ictisaamka ma taqaanin waxay oranayaan waanu naqaanaa marka xisbi ay geeduhu garanayaan inaan halkan aanu ka sheega waxba yeeli mayso waan maleynaa qof la doondoonayo oo in ceeb loo sameeyo oo waxaanu oran ama aanu aaminsanayn in la marmariyo ay ujeedadu tahay saas aniga ii daahira والله أعلم بالحال يدعر أي ميل والبلل وريقية وقال كود لا كل واقع وكل واقع كريم يدعر يدعر منا ما نقول واقع كريم وهذا خلط حتى أنا قرانين خلط كاسنتو قارسيسي حديث كادليش يجيسا شيخ أمال إيه وذا ذكر لبا لبدنا إيه كاعتراضين وحيسوي الدين له ما وجه تخطئة هذه القراءة akhrinta noocaasi inay khalad tahay maxay ku dhisantay sheekhu malaw waxay ku dhismi kartaa inaad leedahay riwaayat alhadith bil macna ma banaana oo hadithki bil macna baad ku waris ama inaad ogoshahay hadithka bil macna in lagu wariyo bima la yuhilu al macna sheekhu malaw ma oran karo waxaan diidanay in hadithka macnihiisa lagu wariyo oo lafdigiisa la macna la isticmaalo muhaadaraadkiisa iyo duruustiisa iyo khutabkiisa waxa laga soo helay asharaatu alhadith ولفظي النبي عليه الصلاة والسلام أنا كشيء أنا كسر نقلين لكن من لا معنى وكسر نقلين مركب ما وجه الاعتراض حتى هدي لقى سوق هذا سخل دليل وآخرين وحوين ما تاس علماء أنا أنت لحنوه كدعاء أنا وحبك تيجالي ما فرفري معي هذا الشيخ أمل عند جيسر يعني مكلحني كوارك الكحر سوق هذا معي وحكى له الشيخ أمل أويري قاعدة كصاب صنع المصلحة والمفسدة dagaalku inuu maslaxo xaqiijinayo iyo in mafsadadiisu maslaxadiisa ay ka badan tahay waa mas'ala ijtihaadiye waxa daba la yaab leh haday mas'ala ijtihaadiye tahay culimadu ay isku khilaafi karaan culimaduna ay yiraahdeen la inkaara fi masail ijtihaad waxaano inkaara iyo waxaano waxa weeyaan tacniifa iyo waxaano ahkaama ee la isdul dhigaya waa maxay gaarsiiyay ee caruurta ictisaamku ay u leeyihiin iyo kuwa kalaba oo xisbiyiinay munaafiqiinta iyo waxa kala baxay iyo muslimiinta oo mas'ala iyagu ay ku sheegeen inta mas'ala ijtihaadiya ila hadd an-nifaq maxay u gaarsiinayaan waa qariib arinta noocaasi ah waxa la yaab la wadaad Hargeysa jooga oo laga yaabo akayga sida loo riday inaanu aqoon masaa'ishan aanu si fiican u baarin inuu yiraahdo waa yiri may diyaar garoobin إعدادك كف الله وديار صدين بولي ما أخبرك بهذا يا أنت نوع عسيك وجو الرمي يكون شاك مجربا محقبا إن ضدك الله صوره إن الله يهود عيننا والشيخ مال ويراهضه هذا الكاغو محمود ترى إنه ضدك كتشوش قليو دعاني ود عيني الموياني أنا أبى منبرك وقد عيني ودرسك وقد عيني ومسلمين تلو دعاء سيتاس الدعاء وتشوش قليل حتى hadday igu qiimaysnaan lahayd in qolada yuhuudda weerartay weerarka noocaasi ay mafsado maslaxada ka weyn muslimiinta ugu soo jiideen ma iraahdeen mar hadday iyagu marka hore khalad galeen yaan loo nusraynin xataa hadduu ictiqaadkaygu ka ahaan lahaa sidaa igu caddaan lahayd oo muslimku inuu marka hore khalad galay oo dagaal aanay maslaxa ku jirin uu bilaabay muslimiintu uga hari maayaan unusrayntiisa waxa la oranayaa sida sheekhu Maliri kulliba way dhimanayeen ma daliilba haday dhimanayeenna ma dhimashooda la sii kordhinaya tasallut al-yahud ala al-muslimin wakadalika sa'ir al-kuffar markii hore sheekhu Malwaan u cudur daaray waxaan islahaa wala su'aashu baa la weydiiyay oo cidda masalada ka hadashay isagu mu dhageysan لكن مرلباتك مركو موضوعي كو مقلي يدو سيدا اي موقتو خطبديدي دنبه u dhageystay waxa ay cadaatay in arinta noocaasi ay tahay mid uu bareeray sagliftiis waxa codadka ku jirta sheekhu Malaw adoo ka sheekeynaya kulamo iyo doodo shabaabka idin dhex maray
waxyaabaad ku tiri waxa kamid ahaa war ciidankan Ugandiska ee leedin waa 4,000 oo gelin hore waan ku leefeynaa war arintu sidaa ma sheekhu mal wuxuu leeyahay shabaabka markaan wada hadalkii isku afgaran weynay muxaadaran xamar ka cilaansaday deetana saldhig noo dhawaabay weerareen arintaas wayna dhibaataysayo muxaadaradii baa laga kala yaacay aye nafsu mas'ala waan ka hadlayay miyaan ahayn haday weeraraan gaalo adigu aaminsanayd in lala dagaalamo oo ay ka dhalatay adiga iyo dadkii muxaadarada ka dhageysanay halis ku galeen haday iyagu ku yiraahdaan ka waran war anagu waanu jihaadeenaa halista doonaysan galao shuhada hadee noqonaysaanay dhinta haday yiraahdaan maxay jawaabtu noqonaysaa maada yakunu aljawaab waxa kaloo isweydiin leh dhulka islaamka ee gaaladu ay haystaan aad bay u badan qaar sheekhu mal aad uga agdhaweyna way jiraan hore isaga iyo اتحاد اعتصام ay fatwoodeen in laga jihaadana waa jiraan kuwa dagaalkoodii maxaa loo joojiyay ila waa dhul islaamo gaal ay haysatay waxa muuqata sheekha fataawadiisa iyo mawaaqiftiisa iyo hadaladiisu inay yihiin kuwa غير mustaqira dadka caamadii hadaan fahmahayn oo marba muujada cusub ee loo saaro oo ay la qabsanayaan dadka culimada iyo dadka talabatul cilmiga way fahmayaan مواقفta kala duwan iyadoo xaaladdu ay tahay aad bay u muuqataa taas waana duuban tahay oo way sajilantay arintaasina aniga waxa ila muuqataa inay ka dhalatay usul thaabita sheekhu inaanu marar badan ka duulahayn ee marba xaaladda jirta wax uu ka oranayo dabeetana xaalado isku mid ay kala xukum noqonayaan oo mar dagaalka ay shabaabku kula jireen ciidamadii shisheeye ee wadanka yimi ee gaalada ahaa Ugandis iyo Rwandis iyo Xabashiba jihaad buu ahaa marna jihaad ma ahayn mal farq waa maxay labada xaalad maxay ku kala duwanaadeen qofku wuu oran karaa fatwada hore khalada laakiin waa inuu dadka u sheegay tawreyn khalad ahayd ila qaar baa wali le adaa saan oo fatwado sidaan ugu yiri taaro ku dhagan waa khalad oo arinta noocaas waan ka noqdayna wali lama hayo qofka muslimka ah inuu xaq u noqdo waa inuu shujaac iyo geesi uu ku noqdo oo waxa khaladnimadiisu ay u cadaatay dadka muslimiinta inay uga faa'iideystaan waa inuu yiraahdo arinka noocaas khalad buu ahaa ilaahay baan uga toobad keenay waa inuu yiraahdo shabaabku mar mujaahidiin bay ahaayeen imikana waa khawaarij ama way ka agdhowin labada farqiga u dhaxeeya markii hore ka noqday sheekhiya ragga la midka ah oo kan damba saxa mise laba qowl buu masalada ku leeyahay soo Shaafici masaa'isha qaar kood laba qowl ugu leeyahay in baarlamaan mar la takfiiriyo gaalnimo lagu xukumo kuwa kale aan la takfiirin maxaa farqiga labada u dhaxeeya waa maxay waa in dadka muslimiinta ay u cadaato ma ansaxaysa qat'an qofku marba xaaladda taaganun waxa wixii ay ula muuqatay inuu dhaho waxa masaa'isha dhacday kamida dadka qaar kood aad ugu soo celceliyeen iyagoo tasliye masalada ay ga dhigayaan qolada i'tisaamku hujuum aan loo kala harin macna dad badan ay ka qayb galeen markay masalada ka hadlayeen ugu soo qaadeen haddii khalad cad aan ku dhacay xawa ma ahaateen oo qofku hadduu khaldamo in la radiyaa waa arrin sax aniga se waxba iga dhibi mayso ilaahay baa quwwatu taxamul ii siiyey ruduudda la radinayo haddii aanan taxamuli karayna mar horaan iska dayn lahaa masaa'ishan ka hadlaya ka hadalkeeda oo aan ka carari lahaa ilaahayna subxaana watacaala taa waan uga mahadnaqayaa wixii xaqa ilaahay subxaana watacaala sugnaansho inuu ii siiyo ilahay waan uga mahadnaqayaa iyagana nasteexada aan siinaya waxay tahay war tacasubka xisbigaa iska daayo ilaahay ka baqa